ciid wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeeni diblomaasi oo aynu ku eegayna wadahadalka telefoona dhex maray madaxweynayaasha ruushka iyo faransiiska. wadahadalkan ayaa kusoo gabagaboobay sidaynu horeyba u qiyaasaynay oo ahayd inaanay waxba kasoo bixi doonin. labada madaxweyne dalalka ruushka iyo faransiiska Emmanuel Macron iyo Vladimir Putin ayaa maanta ku wada hadlay khadka telefoonka, kuwaasoo ka wada hadlaya xaaladda dalka Ukraine. madaxweynaha faransiiska ayaa waxa uu watay qorshe uu doonayay inuu madaxweynaha ruushka kaga dhaadhiciyo inuu u ogolaado Ukrainiyiinta inay qabadigooda u dhoofi karaan dalalka adduunka oo aada ugu baahan waqti xaadirkan, ayna isticmaali karaan dekadahooda. waxaynu ognahay tan iyo duulaanka ruushku markuu ka soo qaaday dalka Ukraine inay xanibeen dhammaanba maraakiibtii geli jirtay amaba kasoo bixi jirtay dalka Ukraine. qodobkaas uu ka beediiday madaxweynaha dalka ruushku uunu ku xiray in markeeda hore reer galbeedka looga baahan yahay inay joojiyaan kaalmada hubeed ee isu soo taraysa oo ay maalinba maalinta ka dambeysa usoo dirayaan dalka Ukraine. sidoo kale madaxweynaha ruushku waxa uu ku eedeeyey hubka reer galbeedku ay siiyeen dowladda Ukraine in lagu laayay dad rayid oo aan waxba galabsan. ciidamada Ukrainiyuuntuna ay hubkooda ku garaacayaan magaalooyinka ay ciidamada ruushku gacanta ku hayaan. dowladda faransiiskuna ay ka mid tahay dowladihii ugu dambeeyay ballan qaaday inay dowladda Ukraine siin doonaan hubay iskaga difaacdo dalka ruushka. sidoo kale intii uu telefoonka ku wada hadlayeen labada madaxweyne waxa uu madaxweynaha ruushku iska fogeeyey kana beri yeela ciidamadiisu inay geystaan waxa suuqa intii ay howlgalka ka wadeen gudaha dalka Ukraine. indhawaalaba ciidamada ruushka ayay reer galbeedku waxay ku eedeynayaan xasuuq baan inay ka geysteen tuulooyin duleedka magaalada caasimadda Kiev ku yaala. mar dambena ay sheegeen inay dad ku xasuuqeen magaalada Mariupol iyo magaalooyin kale oo Ukraine ka tirsan. dhammaan eedeymahaas ayuu madaxweynaha ruushku waxa uu sheegay inay yihiin kuwo kutura kuteen ah oo ay warbaahinta reer galbeedku aliftay. dowladaha reer galbeedkuna ay go-aansadeen inay ku sumcad xumeeyaan dalka ruushka iyo ciidamadiisa oo uu sheegay inay yihiin geesiyiin qaran ahna kuwa ugu dambeeyay dadka ruushka ah si dhaba oo la hubo isku hadlayaan. wadahadalkan ayaa ahaa kii labaad oo dhex mara labada madaxweyne, iyadoo aynu ognahay madaxweyne Emmanuel Macron inuu ahaa ergeygii ugu sarreeyay midowda Yurub iyo NATO ka tirsan oo booqda dalka ruushka intii aanu bilaaban dagaalka dalka Ukraine. waxaana uu dalka booqday isla bishii labaad oo ahayd xilligii ruushku dagaalka ku soo qaaday dalka Ukraine. kulankaa hore ayay labada madaxweyne waxay wada hadlayeen si foolka foola muddo ka badan 5 saacadood. ugu dambeyntiina kulankaas waxa uu noqday mid ay waxba kasoo bixi waayaan. waana labadii nin oo iyagoo isor fadhiya go-aan gaari kari waayey oo maanta mar labaad telefoon ku ballamay. inkastoo aan telefoonka maanta la sheegin inta saacadood ay wada hadlayeen, haddana waxa uu ku soo dhammaaday sidii aynu filaynay oo ahayd inaanay waxba kasoo bixi doonin. madaxweynaha faransiiska oo isagoo dhowaan bishii lasoo dhaafay loo doortay inuu hogaamiyo dalka faransiiska muddada soo socota ayaa ololihiisii doorasho waxa uu ku galay inuu Ukraine caawin doono kulana dhaqmi doono dalka ruushka siyaasado aada u adag. isla durbadii markuu xilkaa la wareegana waxa uu ballan qaaday dowladda Ukraine inuu siin doono hub culus oo casri ah loogana baahan yahay inay dalkooda ka difaacaan ruushka soo weeraray. sidoo kale waxa uu xilligaa u ballan qaaday dowladda Ukraine inuu la soo gaari doono kaalmo degdeg ah oo bini-aadanimo. waana isla madaxweynihii kan maanta la hadlaya madaxweynaha ruushka oo doonaya in cunaqabataynta ruushku saaray dalka Ukraine uu ka qaado meesha uu isagoo hore u ballan qaaday inuu cunaqabatayna dheeraada saari doono dalka ruushka. aynuna ognahay shirkado badan oo laga leeyahay faransiisku inay joojiyeen howlgalladii ay ka wadeen gudaha dalka ruushka, taasoo keentay in kumanaan ruushiyaan ay noqdaan kuwo shaqo la-aan ah. isla madaxweynahaas ayaa maanta damcay inuu inta waco madaxweynaha ruushka uu weliba codsigiisa ka ogolaado. madaxweynaha ruushkuna waa mid ka warqaba dhammaanba falalka ay sameeyaan madaxda ugu sarreeya dalalka Yurub, iyadoo aynu ognahay faransiisku inuu yahay labada dal oo dabada ka riixaya midowda Yurub marka lagu daro Jarmalka.
si gaarana dowladda ruushku ay isha ugu hayso. labadan dal qudhooda ayaa waxaa jirta taariikho hore oo ka dhexeeyey, inkastoo taariikhahaas ay ka mid ahayd saaxiibtinimo kooban oo soo dhex martay, balse inteeda badani waxay u badnayd cadaawad wakhti dheer socotay oo ka dhexaysay ruushka iyo faransiiska. waxaanuna ognahay markii ugu horreysay inta sooyaalka ku diiwaan gashan oo hogaamiye yurubiyaana damco inuu qabsado dalka ruushka inuu ahaa naabuliyoonkii ka talin jiray dalka faransiiska, kaasoo ku guuldaraystay. xilligaa wixii ka dambeeyeyna labada dal waxaa soo dhex marayay xilliyo kooban oo saaxiibtinimo ah, balse u badan nacayb iyo cadaawad. waa laba dal oo kala haysta labada mabda' ee adduunka looga dhaqmo, kuwaas oo kale ah bari iyo galbeed, oo aan marnaba saaxiibtinimo joogto ay yeelan karin. inkastoo ay jiraan wakhtiyo ay iscaawiyaan haddii ay noqon lahayd dhanka ganacsiga iyo tiknolojiyadda, balse waa wax yaroo fara ku tirisa. dowladda faransiisku waa xubin firfircoon oo ka tirsan midooda yurub iyo gaashaanbuurta nato, kuwaasoo labadaba dowladda ruushka ay u aragto inay yihiin cadowgooda, iskana ilaaliso 24 saac. isku soo wada duuba wadahadalka madaxweynaha faransiiska uu la yeeshay maanta dhigiisa ruushka iyo wadahadallo dambe oo madaxda reer yurub ay isku dayaan inay la yeeshaan madaxweynahaas ayaa noqon doona kuwo ku dhammaado guuldarro. dalka ruushku maaha mid wakhti u haya hadal badan oo aan dhaafsiisnayn afka baarkiisa, kaasoo caan ka ah dunida reer galbeedka. waa dal haddii uu doonayo in heshiis la qaato markaba diyaar u ah, balse waa dal aan u baahnayn wixii kaleoo wakhti lumisa. daawada fadlan muuqaalka like saar, laygtaadu waxay noo tahay hadiyad iyo dhiirigelin. mahadsanid, ciid wanaagsan.